madaxweynahayna oo ciidamada Soomaaliyeed qanciyay oo mushaarkooda bil daa'ima siiyo diyaaraan u nahay dhib iyo dagaalna ma rabno madaxweyne jir oo joog wiligaana taagnaw anagoo ummadda Soomaaliyeed sida degmada Cabdicasiis madaxweynahayna rabnaa madaxweynahayna waxaan ahayn ma rabno madaxweynahayna waa taageeraynaa waana jecelnahay waxaana ku taageeraynaa ciidamadeena 20 bisha mushaarka u soo dhacayaan ku taageeraynaa waligood meena arkin 20 bisha mushaar u soo dhacayo farmaajo gul soo dhawow rabiita kay farmaajo soo dhawow madaxweynahayga maxamed farmaajo waan taageerayaa waxa aan leeyahay maanta sidoo noo qaabilay haddaan nahay dawlad iyo haddaan nahay shacab wuuna taageeray madaxda ciidankayaga ciidan maanu lahaan jirin hadda ciidan aan leenahay qarana oo hubaysan oo cid kasta daafici kara ayaan leenahay عليكم داوديال meel walba joogtaan mar kale barnaamijkeeni Bidar Caawiye TV anigoo Leon Bidar Caawiye waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka xaaladda Soomaaliya oo cakiran muxaafid iyo mucaarad oo isku haysta mid walba inuu asay saxan yahay madaxdii hore ee wadanka soo martay hadaladoodii shalay iyo hadaladooda maanta teen saxa teesa been ah madaxda dalka hayso ma tahay xilligii ay tanaasuli lahaayeen maamul goboleedyada ma tahay xilliga tanaasuli lahaayeen madaxweyne Dani oo wuxuu doonay iskaga hadlay waxaan ku dhageysan doontaa barnaamijka oo kale kaliya qaar oo go'an insha Allah billahi kariim waxa kala socon doontaan Bidar Caawiye TV mar walba isbuuci hal mar oo barnaamijka siyaasadda kaftanka siyaasadda ah la soco barnaamijka oo dhameystiran yaa la xisaabtamaya aqalka baarlamaanka weerartay gudoomiyihii xabad kaga saartay Garowe yaa mucaarada iyo dawlad xildhibaankii su'aal weydiisa talaaba ka qaadis loogu goodinayo yaa la xisaabtamaya dawlad xildhibaanadii xisaab celinta dalbada xasaanaadka xayuubin lagu sameeyay 2 sano waxay ugu dhamaanaysaa madaxweyne Dani oo aan lahayn mucaarad awooda inay madal ka dhaliilaan sababtuna waa iyagoo xil sugayaal ah ama xabsi iyo xabad ka cabsanaya Dani 2 sano ee dhamaatay waxa uu si fiican u abaabulay xaflado iyo cashooyin uu isku maamuuso madaxda Soomaalida ku marti qaado Garowana waxa ay noqotay caasimadda hawagadiska laga helo tamashlaha siyaasadeedna loo tago balse dhaqaalaha dadweynaha ayuu maarayn leeyahay Dani iyo dawladdiisuba dhaqaaqa dekada Boosaaso ayaa meel hoose gaadhay xafaarad ayaa loo waayay tiro 3 jeer ayay ganacsato u diiday inay wax kala soo degaan welina lama hayo xal rasmi ah oo dekadu leedahay intii uu xukunka joogay waxa dhacay sicir bararkii ugu weynaa ee Puntland $100 waxa uu gaaray 5 milyan oo shilinka Soomaaliga ah waana abid markii ugu horeysay Puntland waxa istaagay qaadashada shilinka Soomaaliga dad ayaa la wariyay inay gaajo u dhinteen waxa masalufay ganacsato dhowr jeer oo ay dawladdu xal keentay ma dhaqan gelin cidii mas'uuliyadda lahaydna ciqaab lama marsiin xaalkuna waa afsalax ku dhig inta uu xilka haya madaxweyne Dani 2 sano waxa dhacay dilal waaweyn 2 gudoomiye gobol ayaa la qarxiyay madaxii shirkadda DP World ayaa bilowga xukunka la khaarajiyay wali maxkamad looma soo taagin kuwii gobolfaladaasi geystay lamana ciqaabin saxan daawatay barnaamijkii libiyada qaarkood keebaa saxan keebaa uu sheegayo keebaa aamina banaanbaxa 26 jimcaha dhici rabo yuu dan ugu jiraa banaanbaxa ka dhici rabo la iclaamiyeen mucaaradka Soomaaliya ka dhici rabo Muqdisho yuu dan ugu jiraa haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed dan ma ugu jirtaa nimankan is haysto oo dawladda shisheeye ay adeegsanayaan maxay kula tahay aragtidaada madaxdii hore hadaladooda iyo hadalada maanta markaa qiimayso maxaa kaaga soo baxay daawo kilibkan kale adaa yaabaya dawladda
waxaan aaminsanahay in laga gardaran yahay oo wixii ay qabatay inta la xaqiray lagu daboolay wax beenaho aan jirin oo dadka lagu marin habaan lagu jahwareerinay waxaan aaminsanahay arrintaas inay ka dambeeyaan dad dana gaara leh oo kursi waayey oo nabadda ogolayn oon dawladnimada ogolayn oon horumarka ogolayn oo raba inay ka ganacsadaan dhiigga ummadda Soomaaliyeed bal ilaahay baan idinku dhaarashay ee waxa ka dhibka badan maxay ahaayeen qaraxyada aad ogeydeen oo ummadda ragaadiyay oo hal qof oo kaligiisa oo walwal aan ku naaysan Muqdisho joogin haddii laga bogsooday maanta 60-70 laga bogsooday oo laga yaabo bil ama 2 bilood inaan qaraxba dhicin hadeerna aan u sii socono intaas ka sii wanaagsan haddii Allah idmo war ma waysan mudnayn ilaahay inaan ku mahadino ma waysan mudnayn dadkii ka shaqeeyay inaan ku amaano wariyaa Soomaali haddana runta aan sheegno war ilaahay aan ka baqno dadka najaah wareerinaya oo 27 sano rabaan inay dhiiga dadka Soomaali ka ganacsadaan qaraxyada waxaan aaminsanahay markii qaraxyada suuq waayeen oo loo waayay meelay maraan oo baareen qaraxyadii dadka ka shaqeeya qaraxyada inay social media waliba baraha warfaafinta baraha warka lagu fidiyo oo bulshada inay adeegsadeen aaminsanahay waxaan aaminsanahay kuwa qaraxyada sameeyay markii qaraxyadii baareen ay soo waayeen inay dagaalka u bedeleen baraha bulshada si dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed soo horkeen cajis loo galiyo shaqada dawladda waxaan cambaarin dusha uga tuuraynaa weerarka bahalnimada ah oo gardarrada ah oo aan waafaqsanayn sharciga meelna ka waafaqsanayn oo doqonnimada oo fulinimada kaasna cambaareen dusha uga tuuraynaa oo amarkeeda leeyahay madaxweynaha hore xilligiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taariikh xumadaasu inay ku dambaysana waa nasiib darro waxaan leenahay runtii wax saaka lala yaabo ah haddii asagoo waqtigiisa dhamaaday aan waxba u harin oo isku dayayo inuu maaragtay dadka xoog ku maquuniyo oo doorashada hore u diiday oo hadda dadku shuurtooda inay bandhigaan iyo fikirkooda soo jeediyaan oo diidan yahay oo caburin iyo maaragtay xabad ay saaka mare nasiib darradaas inay la soo gudboonaato saaka wax lala yaabo waaye ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba waa uga tacsiinaa madaxweyne ay doorteen oo sida sharciga loo doortay oo la soo dhaweeyay oo in mudaaharaadeen oo maaragtay sidii hufneedoo la ogay ay u soo dhaweeyeen saaka asagoo waqtigiisa dhamaad dadka inuu xabad la dhex taagan yahay oo uusan hadlay oo marka taasaa wax lala yaabaa nasiib darro ummadda Soomaaliyeed soo waajahday waaye asagana taariikh xumay u tahay iyo baal dahab baal madoob ka galay taariikhda ummadda Soomaaliyeed taasna waxaan leenahay horumar kama waafaqsana meelna kama waafaqsana bani aadamnimadana meelna kama waafaqsana arrintaasna ummadda Soomaaliyeed uga tacsiyeeyna ayada dhibaatadaas uga tacsiyeeyna asaga waxaan leenahay dadkan iyo dalkan dhibaato uma cusba dictatorship uma cusba iska tag ihsaan samay saasa cizigaaga karaamadaada ku jirta waxa la haysto oo ciidamada iyo qalabka ay haystaan iyo biilka ay qaataan iyo raashinka iyo kastiyarta mushaarka $100 oo aad u yar nama anfacdo waa ka baahi badannahay meel kale ka doono oo baahidaad aad ka heshay marka waxaa la rabaa inaad soo jeedaan inayna seexan inaad meeshay joogaan aad ugu tagtaan oo aydan halkan ku sugin haddaad soo jeedaan ood u diyaarsan tihiin inaad difaacdaan shacabkiinna inaad difaacdaan idiin soo bawac dhigi maayaan waa fulayo waxay yaqaanaan inay shacabka qarxiyaan inay carruurta laayaan laakiin wiilal idinkoo kale ah marna hortiin ma imaanayaan mana idin soo wajahayaan maxaa yeelay waxay og yihiin inaad la hortaagan tihiin geesinimo magaaladan kama tegayno kaliya maaha waa soconaynaa waxaan ugu tagaynaa meel kasta ay joogaan annaguna waa idin garab taagannahay ma maqlaysaan annaguna waa idin garab taagannahay waa idin soo booqanaynaa ciidamo kale idin ku soo kordhinaynaa waa bacsanaynaa ilaa ay tirtirmaan
marna ma yeelayno marna ma u dul qaadanayno inta ay meelahan ka tagaan oo ay ku samaystaan wixii la qarxinayay oo ay maatida iyo carruurta ay maxaan ku rahdaa ku laayaan oo hantida ku burburiyaan ka yeeli mayno iska tag ixsaan samay saasaa cizigaaga iyo karaamadaada ku jirta waxa la haysto oo ciidamada iyo qalabka ay haystaan iyo biilka ay qaataan iyo raashinka iyo kasta yarta mushaarka $100 oo aad u yar nama anfacdo waa ka baahi badannahay meel kale ka doono oo baahidaada aad ka heshay haddaad nin balaaya ka dhacday oo sarkaal ahoo muxtarim ahoo darajo weyn oo janan oo korneyl oo adigu aad isku haysato tuugii dadka nahabay isbaarada jidka u tiilo wiilasha askartaa jidka inta u dirsaday isbaarada lacagta iga soo ururiya yiri xaafadaha mugal la galo dahabka xaafada ku jira muxuu ahay sanduuqyada iyo armaajooyinka ka soo yiriyaad tahay qoladaas nabadiidka ah ee ummadda Soomaaliyeed u diiday nabadda waxaysan ogeyn oo ay meesha ka bixiyeen ummadda Soomaaliyeed inay leeyihiin geesiyaal idinkoo kala ah inay leeyihiin dad halyeeya ah oo idinkoo kala ah diyaar muutiin diyaar muutiin aad dhimataan diyaar muutiin aad dhiigin u bixisaan waxaan idin sheegayaa aniga ugu horeeya waxaan diyaar u ahay inaan idinku imaado aagaga dagaalka oo aan naftayda u bixiyo dadweynaha Soomaaliyeed qof walbana diyaar wuxuu yahay maanta inay u soo baxaan oo ay dhiigooda iyo naftooda u bixiyaan difaaca qarankooda Soomaaliyeed idinka hormood u ah waxaan kulligan ku wada dhaaranay oo dhaarti Ilaahay u marnay inaan difaacno dalkeena Soomaaliya waxaan dhaar u marnay oo Ilaahay hortiisa ugu dhaaranay inaan difaacno dalkeena Soomaaliya waxaan u dhaaranay inaan difaacno soo diinteena maaha waxaan idin sheegayaa haddaad dhimataan waxaad tihiin xaquudir mujaahidiin baad tihiin idinka maanta baxaysaan insha Allah waxaan idin rajaynayaa guul waxaan idin rajaynayaa guul waxaan idin rajaynayaa guul Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato